بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاتي وعنا وناكسن أرضي ميل كستو oo daafaha dunida ka joogtaan. Waxaan qadaynay shanaad aynu kaga warrami doono barnaamijkeeni macallin Jimcaale ee diiniga waa ciidaha ayaynu kaga warrami doonaa dadka muslimiinta ay leeyihiin. Waxaan ognahay inay dadka muslimiintii oo aad u garanaysan oo dhamaantiin wada sugtaanay dadka muslimiinta leeyihiin laba ciidood iyo ciid marka laba ciidood oo sanadkii hal mar oo hal mar la ciido iyo ciida usbuuc oo jimcaha. laakiin maanta waxaanu gali doonaa labadeeda ciidood ee waaweyn. dadka muslimiinta waxay leeyihiin laba ciidood oo waaweyn oo ay u dabaaldegaan u muujiyaan farxad marka ay ku kulmaan salaad tukadaan marka lala farxo. marka ciidaha waaweyn ee muslimiintu waxa weeye waxa kala dhaca ciid al-fidri wa ciid al-adha. ciid al-fidrigu waa ciida bisha Ramadaan aynu soo soono kadibna markay inoo dhamaato bisha Ramadaan ciidna waxa la yiraahdaa ciid al-fidri. ciida xajka waa u taqaanaa adha baa la dhaca ciid al-adha oo bishan waxay dhacdaa bisha islaamka bisha sagaalaad baa la ciidaa bisha tobnaad baa la ciidaa oo shuwaal kowdeeda ta kalena marka waxa la ciidaa dhulxijja oo 12keeda ayaa la ciidaa. marka taas waxa weeye waxaan uga dan leenahay inaad ogaataan bilaha islaamka oo aad maskaxdiina ugu soo dhacdo waxyaabaha aynu ciidaha muslimiinta. ciid al-fidrigu waa hal maalin oo kaliya halka ciid al-adha ay tahay 3 maalmood. macnaheedu waxa weeye 4 maalmood oo ayaamu tashriiq oo 3 cisha iyo maalinta ciid 4 maalmood weeye ciid al-adha. ciid al-fidrina waa hal maalin. qofka muslimka waa inuu isku diyaariyaa ciida laakiin waa inuu ilaabin acmaasha faraha badnayd uu maalmaha khayrka faraha badan la soo waday. haddaad tiraa bishii baad soo soontay 10kii dambe aad soo cibaadaysatay waad ictikaaftay sida hore u tilmaamin 10kii dambe ictikaafkii de sunnaha khayrkii faraha badnaa baad soo waday adoo waxaas oo dhan soo sameeyay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo bari waa inaanad markaa maalin ciidi aanad macaasi samaynin boodboodin dadkii caayin xumaan samayn xumaan ku dhicin waxaas oo dhan iska ilaalisa. laakiin waa inaad markaa de aad suuqa iyo khayrkii iyo wanaag aad markaa dadkii ugu yeedhaa oo qalbigaaga iyo iimaankaaga ku sii siyaadilay. aadaabta maalinta ciida waxa kamid ah kow in qofku soo maydho inta aanu salaada u bixin. waa shay muhiim ah aadaabta ciida waana sunnayaasha muhiimka adigoo maydhan oo qurux badan oo soo maydhay waa inaad markaa u jeer garowdaa. qodobka labaad ciida fidriga waxa kamid ah qofku waa inuu wax sii cunaa inta aanu salaada u bixin. waxaana fiican inuu timir sii cuno waa ciid al-fidriga. marka ciid al-fidriguna waa maxay waa ciida bisha Ramadaan. marka waa inaad timir sunnaha inaad 3 midho timir sii cunto marka waxa kamid ah sunnayaasha waxyaabaha aadka u muhiimta aadaabta. qodobka saddexaad waxa kamid ah qofku takbiir badiyo oo ku celceliyo takbiirti Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. ducada saddex akhrisanis markasta iyo wixii kale takbiirta iyo tahliisha aad wad ku celceliso inta sii socoto oo wadada si ay ciidaada iyo sijaayada sii sidato. waxa kamid ah qofku qaraabada iyo jaarka boodo dadkana isku tahniyadeeyaan isku hambaliyayaan taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. ilaahay naga aqbalo amalkii wanaagsan ay soo qabalayni. marka taasina waxa weeye waa ducooyinka uu qofku kullaas aadaabta looga baahan yahay qofku marka ciidaha inuu la yimaado. waa inuu qofku isku qurxiyo oo xidhaa dharkiisa kuwa ugu quruxda badan leh waliba dhar cad haduu helayo ama dharku doonaha noqday dhar qurux badan hadad helaysana aad iibsato hadii kana dharkaaga kuwa ugu quruxda badan la soo xidhato soo cadriso. inuu dharku noqdaan kuwa aan ka soo jeedin dhaqanka islaamka. badanka dhalinyaradu waxay xidhaan ama ay hooyo waalidkooda ku khasbaan inay xidhaan maxay dhar isku dhajisan dhar markaa jirkoodii keenaya hablihii ma garanaysa cawradoodii muujilaya inuu qofku markaa timihii ka saaro waa dhaqan xumo inuu dharkiisa ku sii dhajiyo waa dhaqan xumo. waxaasoo dhan iska ilaalisaan ayaa muhiim. waa inuu markaa qofku markuu salaada tagayo uu maro hal wado. ciidi markaad u baxdo salaadii aad qabalayso wadaad maraysa markaad soo socotana wada kale aad maraysa saasa sunnah nabiga kaleey salaatu wasalaam saasuu sameeyay jiray. marka wadadii hore uu ku soo noqonay wada kale haday jirto guriga ka galayso waxa kala sunnah gaariga ka haysan iska luge hadaad goobtu ay ku dhowday salaada lagu tukalay garoonka amba masaajidka goobaha muslimiintu isku imanay ku tukalayaan waa inaad markaa u lugaysa taasa markaa aad u muhiim waxa weeye markaa waxyaabaha aynu soo sheegnay ciido aynu ka tilmaaminay aadaabtooda waa in niyada ku haysaano qofku khayrkii iyo wanaagii faraha badnaa soo sameeyay inuu ku dadaalo. aadna waa u mahadsantihiin. waxa markaa inta inoogu soo ilaaday xalqadeeni shanaad waxaana idiga tagaynaa taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. ilaahay idinka iyo annagaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala camalkii wanaagsan ay soo wadna Allah inaga aqbalo
خالصنا الله ينوغيلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعلن جمعان جواني وإيدي السلامية.